بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii la magac baxday ismaandhaaf adduun sheekadan waxaa qoray halabuur cabdulqaadir axmed shaafici waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdiqafaar xabbi dhegeystayaal inta aanan u gudbin qaybtii saddexaad ee sheekada marka hore aan dib idin xasuusiyo halka ay noogu dhammaatay qaybtii labaad ee sheekada ayaan leh inta uu baabuurkii ku dhex maaweelinaya ayaan waxaa baabuur ka dambeeyey saarnaa nin aad u foolxun oo aad ugu xumaa sheekadii dhex maraysay ayaan iyo ayaanle indhihiisa cascasaa ayuu ku gubay tan iyo intii ay dhaqaaqayeen isagoo aad ugu xumaa sheekadii jaceylee dhex maraysay ayaan iyo ayaanle haddaba dhegaystayaal qaybta saddexaad ee sheekada waxay noogu bilaabanaysaa sida tan ninkii foosha xumaa waxa uu ahaa nin sakaraad ee suuxda xisaabinayay isaga oo u malaynayay inuu ka guulaystay ayaanle islamarkaana la farxad caweynaya ayaan isagoo aad uga xanaaqsan ayuu ka soo degay baabuurkii kadibna galay hoteelkii ay ka soo baxeen ayaanle iyo ayaan markaasi ayuu xanaaqii si xanaaqsanaa darteed la dalbaday wixii khamri ahaa ee yaalay hoteelka aad ayuu u khamri cab badnaa habeenka uu xanaaqana waxaa la moodayey in tartan khamri cab ah ay ku wada jireen ciroole ruush ah oo ku cimriyey khamri cab wuxuuna ka mid ahaa dhalintii Soomaaliyeed ee ku nooleed Addis Ababa ee dhiigooda xambaarsanaa fayraska ninkaasi magaciisu wuxuu ahaa Deeq waxaana lagu naanaysi jiray Deeq Magiirte Deeq wuxuu ahaa ayaanle walaalkii oo ay hal guri ku soo wada koreen oo ka weynaa 12 sano da'diisu waxay ahayd 35 jir doobnimo ku raagay muuqaal ahaan wuxuu ahaa nin aad u madow oo aad u gaaban wuxuuna lahaa indho cascas ilka cadcad iyo addimo kuuskuusan oo meelo fara badan ka muruxsan haddii uu ku soo eegi lahaa adiga oo gabar ah oo waddada iska maraya mar shaydaanka waad iska naari lahayd haddii aad wiil tahayna waxaad u diyaargaroobi lahayd colaad u baahan difaac adag dabeecad ahaan waxa uu ahaa dadka lagu tilmaamo garmaqaate tiisa u muuqato ardeeq ah yaa foolxumo iyo dabeecad qalafsan isugu yimaadeen oo ay xitaa lacag jawaan ay qurux qorqori weyday wuxuu ahaa ninkii ugu dhibcaha hooseeyey doorashadii loo wada tartamayay ee ahayd sidii ayaan 5 karoon loo heli lahaa wuxuuna ahaa musharrixii isticmaalayay qodobkii ahaa lacagay xamaalo waxaa kale uu ahaa maareeyaha shirkadda Soomaal isla markaana ahaa xaqlaha shirkadaas oo maal fara badan dhaxaltooyo ku helay muddo sanad ah ayuu jeclaa ayaan laakiin iyadu argiisu ayay ka xanaaqi jirtay waxay isku barteen ayaan iyo Deeq arooskii ay isku barteen ayaan iyo ayaanle ee jaceylkiisuna wuxuu taagnaa tan iyo habeenkaas mar walba hadalladii qalifsanaa ee dhex mari jiray ayaan iyo Deeq ayaan uma aysan sheegi jirin ayaanle maxaa yeelay ma aysan jecleen inay ka walbahaariso ama laga walbahaariyo jaceylkeeda ay aadka u jeclayd sida oo kale maadaama ay ahayd ceeb astura waxay kala asturaysay labada walaalo ee ku wada kulmay jaceylkeeda Deeq in badan ayuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo ayaan jaceylkiisa kuna dago lacag si uu u hanto iyada quruxdeeda iyo dabeecad wanaaggeedaba laakiin suurtagal uma aysan noqonin ayaan iyo ayaanle waxay yimaadeen Almendi Hotel oo habeenkaasi ka mid ahaa hoteeladii la diyaarka ahaa cashooyinkii kulkululaa ee loogu talagalay in lagu ciido waxay dalbadeen Almendi oo macal bariis ah cashadii oo gabagaba sii maraysa ayaan eegtay saacad ku dhaganeed gidaarka hoteelka walaal waa waqti damba noloshayda intii aan noolaa waqtigan oo kale kama maqnaanin gurigayaga ee hooyo walaal waxay ahayd gabar edbooneed mana aysan aqoonin wareeg lugcadnimada ay ku takhasuseen gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood kuwaasi oo marka dambe dhex fadhiista qoomamo dhiiqo badan ayaanle uu yar dhoola cadeeyay macaan xageed u degdegaysaa ma inaga fulinay ujeedadii ugu muhiimsaneed ee martiqaadkan caawa gacaliso waa inaad ila joogtaa caawa wax walba ha kugu qaadato ee tan iyo inta aan fulinayno ujeedadii aan kuu martiqaaday isla markaana aynu si fiican u wada ciidayno ciidana ay noqoto ciid taariikhi u leh
jacaylkeenan caawa sanad jirsaday. waa yahay walaal, madaxaaga waan u samayn wax walba, haba igu noqoto dhib ayaan leh weligii ma uusan fulinin ficil ka dhaxeeyey labadooda in ay raalli ka ahayd mooyaane cashadii ayay dhammaysteen. gooska dhaqaajintii ahayd goos la dhaqaajiyey, geel la dhaqaajiyey ka darnaa way istaagtay. kadib wuu soo kaxeeyey, wuxuu keenay wareegga waddada laga soo galo magaalada addisababa marka la imaanayo magaalada nasareed. wareeggaasi waa wareeg ku yaala taag dheer oo laga arki karo bilicda iyo quruxda magaalada. marka la taagan yahay waxay ka soo degeen gaarigii, markaas ayay soo hor istaageen gaarigii, kadibna ku tiirsadeen goofanihii baabuurka. ayaan leh wuxuu eegay ayaan, aad iyo aad ayuu ugu bogay quruxdeedii iyo dabeecad wanaaggeedii. kadibna qalbigiisi ka yidhi, aniga maxay ii gashay mar haddii aan helay gabadhaan aan la heli karin. gacmihiisa ayuu isku laabtay. macaan, haddii aan si kooban kaaga faalooda jacaylkeenna caawa sannad jirsaday, tan iyo habeenkii aan ku bartay noloshayda waxaa iska beddelay wax aad iyo aad u weyn. isbeddelkaasi ay isbeddeshay noloshaydu waxa aan ku tilmaami karaa xaqiiqdii ma jiro. uma malaynayo inuu jiro wax aan ku tilmaami karo. waxaan dareemay reynreen iyo kalsooni buuxda oo saaqday dhammaanba xubnaha jidhkayga iyo naftayda. waxaan si gaaban u odhan karaa shaygii keliya ee kaa maqnaa noloshayda ayaan helay. shaygaasna waa ayaan, waa adiga hortayda taagan caawa. haddii lii hor keeno dhammaanba gabdhaha Soomaaliyeed amaba gabdhaha adduunka oo idil gabar aan kugu doorsanaya in ay jirto, uma malaynayo mana jirto gabar adiga oo kale ah. jacaylka ii kaahaya jacayl la mid ahna ma jiro. waan hubaa taas. waa jacayl ii diiday inaad maskaxdayda ka maqnaatid hal daqiiqo. waa jacayl shaqadii aan ku qaban jiray 1 saac ka dhigay inaan ku qabto 3 saac fikirkaaga awgii. waa jacayl nasasho iyo hurdaba iga caagiyey. waa jacayl igu kalifay dulqaad badan in aan yeesho, dabeecadahaygana beddelay dhammaanba. waa jacayl aan marnaba filanaynin inuu sidan oo kale ii qabanayo. waa jacayl aan ku caafimaaday xaqiiqdii, waxaanse ka sii caafimaad badnaan lahaa aniga oo nolol cimri dheer kula wadaago adiga. waxaan ilaah boqorkaa ka baryayaa in maalin dhow uu ii rumeeyo riyadayda ku wajahan guurkaaga. ayaan way xishood dhoola caddaysay. markaas ayay eegtay isaga, gacanteeda midig ayay ku qabsatay luquntiisa, qoornimada la dheeraatay. gacaliye, caawa waa habeen ka taariikhaysan habeenadii kale. wajahaad gadisnaa ee aan soo maray uuna ka taariikhaysnaan doonaa weligiiba. qudhaydu isbeddel weyn ayaan isku arkay noloshaydu tan iyo habeenkii aan ku bartay. waxaan dareemay wehel qiimo badan oo farxad geliyey naftayda. inta badan ku soo jirtay cidladii iyo murugadii aan ka cabsi qabay in aan cimrigayga ku dhammaysto. waxaana si aanan dhammaanaynin u odhan karaa waan ka baxay cabsidii iyo cidladii xanuunka badneed ee i weheshanaysay muddadii badnayd. haddii lay hor keeno dhammaanba wiilasha adduunka oo idil, wiil aan kugu doorsanayo ma jiro. jacaylka aan kuu qabana waa jacayl xaqiiqdii ii diiday joog iyo jiifba. daqiiqad walbana kama maqnid maskaxdayda. habeenkii markaan seexanayo dhinacaygu dhulka ma qabto xasuustaada la'aanteed. wuu farxad dhoola caddeeyey, kadibna gacantiisi bidix ka raariciyey luqunteeda dheereed. macaan, waxaan kuu wadaa hadiyad qaali ah oo aan ugu talagalay jacaylkeena caawa sannad jirsaday iyo in aad igu soo xasuusatid wakhtiyada aan kala maqannahay. aad ayaan ugu xumahay inaad i tidhaahdid hadalkaas igu dambeeyey hadalladaadii nafteeda reynreen gelinayay ee ahaa in aad igu soo xasuusatid hadiyaddan wakhtiyada aan kala maqannahay. gacaliye, miyay kula tahay in aan ku ilowsanahay marka aad iga maqan tahay? ilowsho aan ku ilooway iska daaye ee 10 sekanba 5 jeer ayaad ku soo dhacdaa maskaxdayda. bariiska aan karinayana in ka badan 9 jeer ayaan dhadhamiyaa inaan cusbo ku daray iyo in kale fikirkaaga awgii. wuxuu soo bixiyey silis dahab ah. siliskaasi oo ku yimid dalab khaas ah. koorta siliska waxaa ku qornaa magaceeda iyo magiciisa. wuxuu u xiray siliskii, kadibna ka dhunkaday labadeedii daan. iyaduna way ka dhunkatay. waad mahadsan tahay gacaliye, aad iyo aadna waan kuu jeclahay. adiga la'aantaana ma sii noolaan karo. haddii aan ku waayana noloshayda khatar aan daawayn karin ayay galaysaa. adaa mudan gacaliso, aad
iyo aadna waan kuu jeclahay adiga la'aantaana noloshaydu ma sii jirayso. cabbaar markay wadeen sheekadii jacayl ayay saacaddii weyneyd ee magaalada ku istaagtay 12 habeennimo. kadib hal mar ayaa la wada shiday leerarkii iyo buruleeryadii loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo sanadkaasi cusub. ayaan iyo ayaanle waxay si wada jir ah u daawadeen leerarkaasi lagu soo dhaweynayay sanadkaasi bilowday. kadib iyaga oo aad u faraxsan ayay ku soo noqdeen magaalada. ayaanle wuxuu keenay ayaan gurigoodii ay degganayd oo ku yaalay warshadda bunka agteeda ee xaafadda Saris. isaguna wuxuu tagay gurigoodii oo ku yaalay xaafadda Boole isaga oo isla farax hadlaya. markii ay kala tageen sariirihii ayay labadoodiba gam'i waayeen iyaga oo ka wada fikirayay waddada ugu dhaweyd ee ay ku wada qaadan lahaayeen mustaqbal guur iyo jacayl waara. isla markaana waxay soo kala xasuusanayeen kaftankii qosolkii iyo daymadii jacayl ee dhex marayay habeenkaas. xasuustoodii markii ay maraysay daymada jacayl ayaa mid waliba xudunta jacayl macaan cuncuntay. markaas ayay kala gam'een. aroortii hore 6:30 daqiiqo aroornimo ayaa deeqmakiirte oo weli sarqaansan oo aad u xanaaq cabursan kana xanaaqsan kulankii ay kulmeen ayaan iyo ayaanle habeenkaasi soo galay qolkii walaalkiis yaraa. ayaanle sinjidii sarkhaad qurmoyneed ee afkiisa ka soo baxaysay darteed ayay daaqadihii qolkii ayaanle isla furigaareen. wuxuu arkay ayaanle oo hurdo aad u macaan ku jira kadibna ka xumaaday hurdadii macaaneed ee uu ku jiray. si caro leh ayuu uga kiciyey hurdadii macaaneed ee ku jiray ayaanle. markaas ayuu ku amray inuu kormeer ku soo sameeyo iskuulo ay shirkaddu dhisaysay oo ka foga magaalada. deeqmagiirte kama ahayn daacad shaqadii uu u dirayay ayaanle balse waxay ka ahayd inuu isaga musaafuriyo ayaanle si uu ugu sii faa'iidaysto inta uu maqan yahay oo uu sidaasi ku hanto. ayaan dhegaystayaal inta haynoo joogto qaybtii saddexaad ee sheekadii la magac baxday ismaandhaaf adduun. sheekadan haddii ay ku dhaaftay dhegayste waxaad mar kale iyadoo ku celisa dhegaysan kartaa 5 galabnimo. waxaan idinla socodsiinayay anigoo cabdiqafaar habbi ah. inta aan ku kulmi doono sheekada xigta waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.